مقعد وعلي عبد الله عبدي إبراهيم وحول النهي عاملك الذي عمر عبد الله عبدي إبراهيم وعن شغلنا ماشي وحكد عين وعن دول شغلنا نك ميت كيسي نك ديارة دغيسي تدحد أن طالبين كل فطي ما قرأت waan gartay meesha marka tagteen bal sida uu jawigu yahay iga waran maxaa ugu tagteen hadana waxaan ugu tagnay gaarigii oo aan sawirkiisa daarintay aan ku soo dirayno hadda gaariga soo shubmay oo yaani aan gaari ahaan loo suureyn karin gaariga soo guban iyo ninkaas oo la fihi oo cadcad iyo inta dhexda oo ubuuda ayaan haynaa madaxii xitaa waa magan yahay adimadii oo la faa iyo inta dhexda oo ubuuda baan haynaa iyo gaarigii oo gubtay oo shurmada deebiye noqday meesha lagu dilay xilligu ka baxay ee ceelbu cid la socotay maxaa xog naga siin kartaa kaligiisu ahaa cid la socotay ma jirto ceelbu ka soo baxay maxamedow saddexdii nimanka u jeeday niman reer baadiye ah oo meesha kurta ku dhow saaraa waxay noo sheegeen saddexdii oo tobanla inay ahayd diyaaradaasi saddex gantaal bay ku dhufatay gaariga laba gantaal bay ku dhufatay gaarigu waa karaaray waa ololay markii uu karaaray oo ololay oo laba gantaal gaariga ku taalo ilaa 15 mitir buu karaaray waana ololay oo bilbil baa ka baxay isagoo ololaya ayaa gantaal saddexaad ay ku dhufteen gantaalkaas saddexaad wuxuu shurbad buu ka dhigay degel madow buu ka dhigay marka waxaad leedahay caaqilka ceelbu ilaa safarkaas uu soo baxay cidna lama ay socon waxay la socotay ma jirto kaligiisu waa dadkiisa soo maca salaameeyeen baad dhan jooga oo ugu dambeeyay oo ceelbu soo maca salaameeyeen kaligiisu waa ceelbu salaada markuu tukaday uu soo baxay nimankiisa soo maca salaameeyeen waa nala joogaan waxay la socotay xaqada hadda aan hayno oo aan rabno hadda anaga waxaan go'aansanay xaqada inaan meesha ka qaadin maxamedow sababa aan u qaadalaanahay waxa weeye baaritaanka in la cadeeyo ninkaas inuu keligii ahaa oo meesha noogu yimaado hadda baaritaan baan sugaynaa madaxweynaha Puntland Mugator baan la hadalay taliyaha booliska Muumin baan la hadalay xildhibaanada Puntland baan la hadalay oo goboladan u dhashay waxa soo socda baaritaan baa soo socda baaritaanka waxaan rabnaa in sida aan warka ku cadeynayno inay saa u cadeeyaan ninkaas inuu keligii yahay waana sugaynaa xogtuna waa sida aan kaaga warramayo maxamed waa tahay ilaa hadda cidda weerarka geysatay iyo haddii dawladda Puntland baa la hadasheen maxaa xog hordhaca haysan wax wardhaca ninka in diyaarad duqaysay oo baan xogta haynaa waxayna yiraahdeen baaritaan baan aadaynaa madaxweynaha Mugatorna wuxuu yiri baaritaan baan aadaynaa hay'adaha ku shaqeeya baana warka keenaya taliyaha booliska Puntland oo saasoo kale ugu yiri baaritaan baan aadaynaa xogtana waa la helayaa cidda duqaysay oo caaqilka dishay xogteeda waa la helayaa buu yiri anagana la ka warsugaya jawaab baan ka sugayna caaqilka miyaa lala xiriirin karaa kooxaha la raadinayo maya ninkaasi nabadoon buu ahaa nabadoon caaqil uu reer buu ahaa maxamed saalax oo waa taqaanaa adigoo dadka taqaanid buu ahaa waxraaga iyo wax luga oo uu ku lahaa dadka la doonayo iyo dadka la raadinayo midna anagu ma jirto wax tuuno loo qabayna ma jirto haweeye laakiin sababaha de waxaanu ka sugaynaa cid duqaysay iyo cid xog ka haysan sababaha ka sugaynaa sababaha aan meesha uga tagilaanahay ka mid tahay inaan helo cadeyn ninka sababta loo duqeeyay iyo sababta loo dilay caadalka waayahay ugu dambeyntii waa adoo mahadsan maxay tahay fariinta marka u diraysid dawladda Puntland iyo cid ay qusayso fariinta aan u diray dawladda Puntland iyo cid ay qusayso oo tan waxa weeye inaan helo cadeynta caadalka loo dilay lama baaritaan degdega iyo xogta iyo cidii geysatay baan rabnaa jawaab ka rabnaa dawladda Puntland iyo lama ku shaqeeya waxaan ka rabnaa cidda ay xogta geysatay iyo sababta ku dhacday baan rabnaa in dhaweyto diyaaradaha miyaa arkayseen البو الشيء habeenada tan in diyaaradahaasi ka dulguuxayeen dhowr habeen bay yiraahdeen baa diyaaradaha guuxooda aan maqlaynay oo ay ka dulguuxayeen albu iyo baadiya ku dhow waa lagu sheegay guuxa diyaaradaha